السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحاب قيمة بدن كحرين channel كنا هادسون أكاديمي ومانتا يا مقال عصب مقال كينا مانتا waxa uu ku saabsan yahay sida loo abuuro file cusub sida loo soo furo fileka iyo sida loo deleedo fileka aynu ku qaadanayna sidoo kale waxaynu raacin doonaa wax la yiraahdo file explorer oo hore aan usoo qaadanay oo aan idin tusi doono insha Allah halkan nagala socotaan waa kaalinka waxbarashada ee Hudson Academy. Ugu horeyn halkan ayaan imaanaynaa. Halkan waxaa la yiraahdaa desktop. Shaashadan inoo muuqato waxaa la yiraahdaa desktop. Desktopkan ayaan waxaan leeyahay right click markaan iraahdo waxaa ii soo baxay menu ama daaqad cusub ayaa ii soo baxday. Menugan ama daaqadan waxaan ka raadinayaa meel ay ku qoran tahay new ayaan ku raadinayaa. Waa kan halkan waa new marka aan ku dhufto new garabkeeda hadana waxaa igaga soo baxay daaqad kale oo yar ayaa igaga soo baxday. Daaqadani yar ayaan waxaan ka dooranayaa folder ayaan ka dooranayaa. Halkaa ayaan ku dhufanayaa. Folder markii aan ku dhufto waa kay folderkaygu waa uu ii samaysan yahay oo new folder ayaa default ahaan ugu qoran. Haddii aan doonana magac ayaan ku qoranayaa oo ah waan bedelayaa. Waxaan dhihi karayaa practical 3 ayaan dhihi karayaa. Practical 3 kadibna enter ayaan leeyahay. Folderkii waan sameeyey oo waan abuuray. Waa kan folderkayga practical 3. Folderka waan sameeyey. Maxaa xiga? Sida folderka loo furo. Folderka laba siyaaboodba waad u furi kartaa. Kow in aad falaadha dul saartid kadibna aad right click dhahdid kadibna open halkaas aad dooratid. Waxaad ku guda jirtaa folderka gudihiisa. Folderka gudihiisana waa ever. Sidoo kale waxaynu soo qaadanay folderka gudihiisa inaynu ku abuuri karno folder kale kaasoo la yiraahdo subfolders. Aynu samayno. Hadda waxaan ku guda jirnaa folderka practical 3 ayaan ku guda jirnaa. Gudahan anigoo dhex taagan right click ayaan leeyahay. New ayaan ku laabanaya kadibna folder ayaan leeyahay. Okay, waxaan ku qorayaa marka subfolder ayaan ku qorayaa. Subfolder. Waa kan. Isla folderka gudihiisa ayaan sii galayaa folder kale ayaan ka sii samayn karaa. Waa kan hadda waxaan ku guda jiraa subfolder. Inta aan uga simo. Qaab labaad oo loo soo furi karo folderka ma jiraa? Haa, wuu jiraa. Waxaan leenahay double click laba mar ayaan gujinayaa double click. Waan ku guda jiraa practical 3 ayaan ku guda jiraa. Practical 3 gudihiisa folderkaas gudihiisa waxaa ku sii jiro subfolder. Isaguna laba mar ayaan click siinayaa. Subfolder gudihiisa ayaan ku sii jiraa. Sidaas ayaa waxaa loo soo furaa folderkii ayaa loo furaa. Waa yahay folderka magaca aynu ka bedelno. Folderkan kore magaca aan ka bedelno. Hadda waxaa inoo qoran practical 3 ayaa inooga qoran. Marka aan ka bedelayno waxaynu sameynaynaa kow falaadha intaan dul saarno waxaan leenahay right click. Right click marka aan iraahdo halkan show more option halkaas ayaan taabanaya. Anigu waxaan isticmaalayaa window 11 ayaan isticmaalayaa. Adigu markaad isticmaalayso window 10 right click markii aad dhahdid optionadoo dhan wuu ku taxaya oo uma baahnid show more option uma baahnid oo ku ma lahan. Haddii aad u baahan tahayna shift F10 ayaad leedahay. Okay, more option ayaan ku dhufanayaa marka. More option markii aan ku dhufto waxaan raadinayaa meel ay ku qoran tahay rename. Meel ay ku qoran tahay rename. Waa kan halka ugu dambeysa midka ka koreeya borbartiisa uu ka koreeya rename magaca ka bedel. Kadibna rename ta ayaan click siinaya gujinaya. Kadibna magaca waan iska masaxaya. Tusaale waxaan ka dhigayaa Hudson Academy. Click ayaan leeyahay. Waa kan magaca waan ka bedelay. Refresh aan ku iraahdo. Very waa kan Hudson Academy. Magacii waan ka bedelay. Haye waxaan soo sameeyey filekii ayaan soo abuuray. Waan soo furay oo open ayaan soo iray. Magacii waan ka bedelay. Maxaan u baahanahay? Waxaan u baahanahay marka filekan inaan deleedo ama inaan delete gareeyo. Waxaan u delete gareyn karaa dhowr qaabood ayaan u delete karaa. Okay, habka buugga aan ku soo qaadanay wuxuu ahaa inaan iraahdo right click falaarta inaan dul saaro. Right click inaan iraahdo more option halkan ayaan tagaya kadibna delete ayaan leeyahay. Rename-ka ay ka koreysaa delete. Toos ayuu u baxaya folderkii. Waa ka folderkii waa aan deleeday. Sida ayaa folderkana
loo daleedaa. Waxa inoo soo haray File Explorer. File Explorer casharka ayuu naga soo dhex galay waan idin tusaya. File Explorer horta waxaa la yiraahdaa halkan wuxuu qaybta hoose taskbar-ka ayuu saaran yahay. Casharkana sidaan kusoo qaadanay waa kan File Explorer kan ayaa la yiraahdaa waa kan mujida. File Explorer way ku qoranta falaadha markii aad dul saartid. Haddii aad gujisidna gudaha computerka ayuu ku gelinayaa home-ka iyo documents-ka iyo meelahaas ayuu ku geynayaa. Kelig aan iraahdo waa kan mujida home-ka desktop-ka music-ga documents video waa kan halkan ayuu ku keenaya. File Explorer halka ayaa la yiraahdaa.